الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayal ku soo dhowaada mu'tamarkeenii tobanaad ee markiska towfiiq islamic center ee soo qabanqaabiyeen maanta waa maalintii afraad uguna dambeysay muxaadaradanina waa tii labaad ciwaankeedana waxaa weeyaan qisadii iyo sheekadii tataarka waana qaybtii lixaad waxaan inoo soo jeedin doonaa sheekheena sheekh mustafa falyatafadal mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه قصة تتارك وإنه ولكو جرنو قيبتي أيغو قولي سنيين وإنن قادين قوبه يغا شبكو دوكا بلاب ميي وحينو كسو دح جرني الدولة الأيوبية أما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله دولة دي بلادنيدا وكتغي دبتنا غوغوده في القنطي قيبها ترada badan noqotay iyo markaa tataarku siduu ula dhaqmay kolba meel uu ku duulayay qolada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan waxayna ugu dambayso aynu soo marnay maya faarqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay ee alkaamil moxamed alayuubi oo la jebiyey waynu nidhi magaaladaba xisaar baa lagu sameeyey dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuunnu u madhay aakhirkii magaaladii bay soo galeen moxamed alkaamil bay soo qabteen dabeetana waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la toorjargareeyey inta la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyey kolba in la cunsiiyey markii u dambeeyeyna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkiiyo dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa lala marayay ilaa madaxiisi uu ku gebagaboobay inay dimashaq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo siday dadka loogu bajinayey ayaa moxamed alkaamil alayuubiy madaxiisii waxa la geeyey dimashq waxay culamaa'i taariikh tilmaamaan xataa dimashq albaabka laga soo geliyey baabil faradiis albaab la yidhaahdaa laga soo geliyey baa la yidhaahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajida lagu aasay iminka masjid ura'si baa loo yaqaanaa masaajidka uu ninkaa madaxda ahaa uu ku aasayay masaajidkii madaxaa la yidhaahdaaba halkaa hadda xabaasha u ah markii uu miya faarqiin ka takhallusay buu wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yaroo kaloo agtiisa jooga oo magaalo maardiin la yidhaahdo haysta inuu weerarka ku qaado maardiin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada u ahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyey rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma almelik saciid nin la yidhaahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyey jawaab ah waan dagaalamayaa laakiin sababta dagaalka ku kaliftay inay ku qoran tahay wuxuu leeyahy kuntu qad cazimtu cala alطaacati wاlxuduuri ila almelik lakin xayثu أnakum qad caahadtum الآakhariin ثuma qataltumuuhum bacda an iطma'anuu ilى cahdikum وأmaanikum faإnii الآna laa ahiqu bikum وإن القلعة بحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليئة بالرجال الترك وشجعان الكرد wuxuu ku gebagabeeyey hore waxaan ku talagalay buu yidhi inaan boqorka u imaado
oo aanu hoggaansamo laakiin waxaan arkay buu yidhi ciddii idiin hoggaansatay ee idan aqbashay iyagana inaad layseen oo idan ammaano iyo cahdi toona lahayn sidaa daraaddeed kalsooni ma qabo aan kuugu imaaddo ee waxaan kuu sheegayaa qalcaddaydu rag iyo xoolaba waa buuxdaa oo rag tiro badan oo turkiya iyo geesiyaashii kurdida ayaa ii jooga buu yidhi dagaal baanan ka xigaa imaatinkaaga holaako ciidamadiisii waxay bilaabeen inay go'doomin ku sameeyaan muddada ay go'doominta magaalada tan ku hayeen ayay waxay bilaabeen inay qabsadaan magaalooyinkii yaryaraa ee u dhowaa oo magaalooyin caan ah fil islaam aamud baa ka mid ah xaraan baa ka mid ah raha baa ka mid ah iyo suruuj iyo magaalooyin qalcado yararoo kaloo tiro badan intaasoo qalcadoodoo yaryaree magaalo markuu qabsaday oo ay magaalada tanina ugu jirto xisaar ayuu wuxuu go'aansaday inuu dib u yaro dhigo dagaalka magaalada tan ou xagga xalab u socdo laakiin inagu qisada si aynu isu raacinno magaaladaynu israacin doonnaa magaaladan xisaarkii markuu muddo ku jireen ayaa waxaa geeriyooday boqorkii magaalada xukumayey almelik saciid magaalada xanuun baa ka dilaacay dabeetana wabaagii xanuunkii meesha ka dilaacay ayuu ku dhintay inanuu dhalay oo almelik ilmudfir la yidhaahdo ayaa dhaxaltooyadii qaatay inankii wuxuu bilaabay isagu inuu gorgortan galo holaku xidhiidh la sameeyey gorgortan buu galay holaaka nin buu u soo diray koohday la yidhaahdo koohdaygii waxoogaa baaba iska wacwacdiyeenoo wuu islaamay ninkan boqorka ah walaashiina waa la siiyey walaashiina wuu u guuriyey waxaanay aqbaleen inay dowladdii isu dhiibaan waxaa la yidhi boqorku waa inuu tagaa hoolaako oo waftiya uu soo baxay ramadaan baa la yidhaahdaa buu soo baxay isagoo hadiyadihii iyo wixiina sida boqor hoolaakuu yimi wixii baa loo gudbiyey hoolaako markaa wuxuu ku yidhi niyow dhegayso waxa ay soo gaadhay muusilkii haystay carruurtiisii inay baxsatay oo xaggaa iyo masar ay u baxsatay muusil waa badrudiin lu'lu waa kii ugu xaggan safkan ugu xigayba yacnii xisbu tataarka qoladii ka tirsanayd weeyaan hoolaaka wuxuu leeyay waxay soo gaadhay ninkaa carruurtiisii inay baxsatay oo ay qabteen meesha la yidhaahda masar waxaanan u malaynayaa un asxaabtiisii la socotay inay sababtay carruurtiisu inay baxsato ee waxaan kaa raba adiga waxa weeyaan inaad soo kaxayso asxaabtaadoo dhan dabeetana aad aniga agtayda kaga tagtid waayo idinma aamini karayo inay hadhow intay wax kugu akhriyaan idinna aad baxsataan oo masar qabataan wuu keenay asxaabtii iyo wixii oo dhan dabeetana waa la fasaxay haddana wuxuu ku yidhi hoolaako may waxa ay asxaabtaadu ii sheegeen inaad xagga hoose masaarida kala socotid waxaanan iigu muuqataa inaan kugu daro cid kaa mancida inaad baxsato waayo shakigaa weli waan qabaa asxaabtii lakeen ninkan baa u haysta madax furasho haddana wuxuu leeyahay adigu haddaad noqoto keligaa waan ka cabsi qabaa inaad baxsatid markaa cid kalaa lagugu daraya nin la yidhaahdo axmed boqa ayaa la yidhi baa ku-xigeen kuu noqonaya oo magaalada maamulaya amiir adigana maardiin magaaladaadii waanu kuu celinnay nin fiican baa tahay weliba waxaan kuugu daray magaalooyinka kale ee nasiibiin magaalada la yidhaahdo iyo khaabuur iyo dhul badan oo ka mid ah diyaaru bakr aamudaynu soo sheegnay iyo alkaamil magaaladiisii ama meeshii caasimadda ohde miya farqin intaba adaan kuu wada dhiibay buu yidhi oo madax ka wada noqonaya dhulkan kale weli baanu qabannay qaybo ka mid a qarqas meesha la yidhaahdana
adigaan madax kaaga dhigay marka saxaabadaadoo dhanna waad ka tegaysaa ninkanina wuu ku raacayaa iyo isagaa meesha kula maamulaya mamlakadaadiina waan ballaadhiyey oo intaasoo dhan baan ka dhigay buu yidhi hal waxun baad yeelaysaa buu yidhi markaad magaalada ku noqoto waxa laaliya waxa qalcad iyo burji ku yaalla waad duminaysaa lama ogola dee askar iyo ciidamo iyo waxaad isku adkaysaa inay dhacaan ee waa inaad baabi'isaa wixii qalcada meesha ku yaalla markii uu ka dhaqaaqay ka tegey ayuu wuxuu isugu yeedhay 70 odaygii aabbihii ahaa asxaabtiisiiya oo lagaga tegey dabeetana wuxuu amray hoolaako 70kaba in la dilo odayadan duqaytida ah in laga wada takhalluso wax dembiya oo ay geysteenna ma jiro laakiin meesha dowladnimadu inay si fiican uga muuqataa baa la rabaa mardin waxay noqotay dowlad ay ka taliyaan nimanka la yidhaahdo tataarku waxaanay noqotay imaara caskariya oo bartamaha ku taalla oo suuriya iyo dusheeda suuriya inta ka sarraysa iyo intan kurdigu dega turkiga ka tirsan iyo anaadool qayba inahaasoo dhan xukunta oo ay ka talin karaan horuu socday markaa wuxuu bilaabay magaaladii xalab la odhan jiray iyo dhankeedii inuu kaco suuriya markaa waataynu nidhi dhankii saxaaraha inuu ka galo wuu ka baaqsaday wuxuu bilaabay inuu ka soo galo dhanka waqooyi xalab oo wax yar u jirtaba xuduudda turkiga maanta uu leeyahay ayuu ka soo bilaabay waa cashri alakhiir waa 10kii ugu dambeeyey dilxija 657 hijriyada ama 1259 milaadiyada november bay ku sheegaan meelahayna ku beegnayd ciidamadii magaaladan joogay waxaa haysta towraan shaah nin la yidhaahdo towraan shaah waa nin waayeel oo gaboobay oo kuwan meelahan xukumo dhan adeer ugu beegan naasirkan dimishq xukumo waa adeerkii waa odayadii hore ee muslimiinta ahaa buu ka mid yahay towraan shaah wuxuu qaatay inuu dagaalamo magaaladan aanu isagu dhiibin magaaladu markaa wixii ay xusuun lahayd way diyaarsatay dagaal bay u diyaargarowday xalab inay dagaalanto ciidamada ka mid ah magaalada laga soo saaray magaaladu waa magaalo aad u dad badan oo caasimadii dalalka muslimiinta ugu waaweynaa bay ka mid tahay dimishq iyo marka laga reebo bay leeyihiin iyo baqdaad gadaasheed xalab waa magaalada saddexaad baa lagu tilmaami karaa ee mantaqadaasi tira ahaan dadku uu degan yahay waxaa la sheegaa ciidamadii muslimiinta qaybo ka mid ah inay dabadda u soo baxeen meel dabadda ah baa la isku helay ciidamadaa dabadda u soo baxay dad badan oo iska xamaasadaysan oo dadkii magaalada joogayabaa soo dhan raacay cawaamtii iyo suuqadii ka mid ahaa laakiin markii ay arkeen ciidankii tataarka iyo tirabadnidiisa ayay dib u noqdeen oo magaalada dib ugu noqdeen ciidamadii muslimiinta intii soo hadhay oo dabadda meel magaalada horteeda ah ka samaystay dhufaysyo iyo goobay ka dagaal galaan ayaa tataarkii ku soo baxeen weerarkii koowaad baa la isku yaro qaaday tataarku way u jabeen dib bay ugu yaaceen laakiin may ahayn jabay jabeene xeelo dagaal ciidankii badnaa inta meel damba la dhigay ayaa qoladani u baqa carartay waa eryadeen hal saacada bay sii eryayeen goortii magaaladii laga soo durkiyey ayaa dhan walba laga galay dabeetana intaasi madaxa laga guray magaaladii bay soo duldegeen magaaladii square baa laga qabtay ama waa la go'doomiyey towraan shaah ninkii la odhan jiray isagu wuxuu qaatay inaanu marnaba dagaal mooyaane wax kala aqbalaynin 7 maalmood bay magaaladu go'doon ku jirtay isku dayeen inay towraan shaah la hadlaan magaalada wararkii baa soo galay ah in maxaa la yidhaahdaa miya farqiin in la qabsaday in madaxii kaamil la sito in waxyaabihii dadka niyadjabka ku ridayoo dhan baa lagu akhriyey xisaar magaalada god bay ku soo wareejiyeen markay god ku soo wareejiyeen
ayay kadibna derbi ku sii dul dhiseen si aan magaalada cid uga bixi karin kadibna waxay bilaabeen 20 manjaniiq madaafiicda culus bay u rakibteen waa la garaacay caamadii magaalada ku jirtay markii garaacistiina ku badatay xisaarkiina adkaaday 7 maalmood xisaarkaasi ay ku jiraan ayaa tamalmul dhacay ay leeyihiin warayn si dhiibno malay si dhiibkaa la qaatay towraan shaah waa diiday inuu isdhiibo caamadii badh ka mid ah magaalada albaabadeedii u furtay waxaa la yidhi waa isdhiibaynaa annagu sidan kusii jiri mayno waa la soo galay markuu arkay in magaaladii la soo galay ayuu ciidamadiisa wixii aqbalay buu kaxaystay qalcad magaalada ku taalla ayuu towraan shaah la galay magaaladii xalab oo albaabada loo furay ayuu soo galeen atrak maahee tataarkii wuxuu fasaxay hoolaako muddo 5 maalmooda wixii dhaqaaqaya in madaxa laga jaro 5 maalmood baa magaalada seefta laga dhargiyey dumar iyo carruurtii waa la soo ururiyey taariikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan sabyiga carruurta iyo dumarka la qabsaday 100,000 way gaadhayeen baa la yidhaahaa yacni magaalada kasaafadeedaad garan kartaa dumarkii iyo carruurtii ay qabsadeen 100,000 oo qof dadku gaadhaya ayay qabteen laakiin wuxuu faray inaan la dilin wax kiristana waxay kaloo sheegeen guryo gaara dad galay iyo kiniisadii yuhuudda iyo mala axzaab hoosta kala socotay tataarka farmaano gaara dadka loo jarayo meelaha wixii galayna kontaneeyo kunoo meelaha galayna waxaa la sheegaa in la yidhi hala nabadgeliyo magaalada inteeda kale waxaa la amray in dhulka lala simo dayrkii magaalada iyo suwaarkeeda in la baabi'iyo masaajidda qaar in la dumiyo wax walba in la qarribo qalcaddii hoose tooraan shaah iyo ciidamadiisu galeen ayaa go'doomiskii lagu bilaabay muddo bil ku dhowaada 4 toddobaad markii ay go'doomin ku jireen ayay qalcaddiina xoog ku furteen oo albaabkeedii jabiyeen odagiiyo aad u da'a towraan shaah nolol bay ku qabteen wixii kale ay layn karayeenna way leeyeen towraan shaah waxaa la yidhaahdaa isaga may dilin way qabteenuun maxay u dili waayeen taarikhyahanadu sababo badan bay sheegaan imaam almaqrizi isagu wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dhaawac weyn qabay ama inuu xanuunsanayey waayo maalmo kadibba wuu dhintay taarikhyahanada qaarkood sababo kaley sheegaan qaar baa yidhaahdaa odaygan geesinimadiisa iyo ninnimadiisu ka yaabay oo wuxuu yidhi ninkii odayga hayo hoolaako war ragga allama laayo ninkan ha la daayo laakiin taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin hoolaako nin raganimo ku daayo horeba looma arage wuxuu ka lahaa bay leeyihin dana kaloo siyaasiya oo ah kow xukaamta kale magaalada joogta inayse soo dhiibi karaan waa odaygoodiyo dee adeer buu yahay kan dimashq oo dhan iyo meeshoo dhan isagu madaxda ka wadaa maca xalabtan la qabsanayo kan haystay kan ashrafka jooga xumus jooga waxaan oo dhammi waa isku reer marka odaygooda marka la qabto ee aan la dilin waa fatxu albaabi lilaakhariin bay leeyihin madaxda kalena inayse soo dhiibto dee odaygii horeba lama dilinay laakiin waxaa la yidhahdaa odaygani maalmo markii la hayay kadibba wuu geeriyooday isagu ilaahay u naxariisto meeshii la odhan jiray waxa u yimi alashraf alayuubi xums ninkii madaxda ka ahaa oo hambalyaynaya hoolaakona wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay xalabtan aan dumiyeyna adaan kuugu daray xukun taadii hore iyo xalab isku darso koox tataarkiina wuu kaga tegey meelihii u dhadhowaa qalcadihii ku yaallay siba qalcad xaarim la yidhaahdo oo ilaa 50 kilomitir magaalada u jirtay weerarka ku qaadeen muddo kadib dagaal markuu cabbaar dhacay iyana waa qabsadeen wixii ku jiroo dhanna waa laayeen markan waxaa ku hadhay waxaan badnayn shaam oo dhan naasir yuusuf oo aan magaaladiisii labaad ee adeerkii joogay difaacin eele difaac waxaan kaga jiraa dimashq duleedkeeda iyo waxoogaaga u haystaa u hadhay wax ciidama aw dagaal la geli karo halkan markuu marayey
ayuu mu'tamar qabtay hoolaako mu'tamar abaalmarina waxaa la abaalmarinayaa dadkii iyo geesiyadii dowladda tataarka taageeray ee ku taageeray inay si fudud dhulkan muslimiinta oo dhan u qaban karaan laakiin mu'tamarku wuxuu ku salaysan yahay xasba ru'ya tatariya alqutb alwaaxid dunida la rabo inuu ka taliyo waxaa yimi markaasi oo bogaadinta ka qayb galaya oo dee dagaalkana kula jiray maalan armeniya boqorkeedii haytham waxaa jooga antakiya boqorkeedii bohmand asaadis bohmandiyiinta kuwii la odhan jiray kii lixaad waxaa jooga salaajiqadii ama turkidii muslimiinta ahayd labadii boqore xukumayey kekawskii labaad iyo qalaj arsalaan araabici afraad waxaa la siinayaa markaa mukaafa'aad abaalmarino xoolihii iyo khanaymtii dee xalab laga furtaa la isku abaalmarinaya xalab xoolo badan baa laga helay laakiin qaabka abaalmarintani u dhacaysa waa qaab cajiiba nimankan maalan armeniya kan boqorka u ahe haytham waxay idhahdaan waa ninkii dumiyey jaamicii weynaayey magaalada xalab markii magaalada la burburinayay isaga iyo ciidankiisa ku soo beegmay isagaa amar ku bixiyey in aljaamic alkabiir masaajidka weyne magaalada in la dumiyo isaga wuxuu siiyey xoolo badan markii uu siiyey oo abaalmarina ayaa haddana waxaa loo yeedhay labadii nin ee madaxda ahaa ee muslimiinta ka socday kekaws athani iyo qalaj arsalaan araabic waxaa la yidhi idinku kow waxay yeelaysaan magaalooyinka xukuntaan iyo qalcadaha aa leedihiin qaybo ka mid ah oo ay muslimiintu hore u furteen waxaa ku wareejisaan boqorkii armeniya haytham waa nimankii la socday wax la dagaalka kula jiray ayaa dhulkoodii qayb ka mida waxaa abaalmar loo siinayaa armeniya boqorkeedii la socday si armeniya boqortooyadeeda ay u ballaadhato oo xaliif istaraatiijiyo xooggan u noqdo qoladanna abaalmarkoodii kaasuu noqday in dhulkooda qayb laga qaado oo loogu daro armeniyiinta in loogu daro abaalmarkii saddexaad ayuu wada bohmand oo antakiya gobolka la ydhaha ka tirsan turkiga xukuma ayuu u yeedhay isagana wuxuu yidhi adigana abaalmar waxaan kuu siiyey madiinatu laadiqiya laadiqiyadan suuriya ku taallo magaalo muslima ah oo waa dhulku salaaxaddiin alayuubi ka qaaday nimankii masiixiyiinta uu ka furtay oo islaamay oo dad muslimiina markaasi ah ayuu yidhi laadiqiya adiguna antakiya ku darso waa qaacidada caanka ah bay yidhaahdeen ee isticmaarka labadan qodobee dambe waa qaacidadii caanka ee isticmaarka oo isticmaarka waxay dhahdeen almuxtal yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiqu bay yidhaahdaan colonial mustacmarku waxaanu lahayn ayuu cid aanu xaq u lahayn siiyaa ingiriiskii soomaaliya yimi ee askarta ka dhigtay ee ay dunidao dhan kala dagaalameen ilaa iyo bermo kala dagaal galeen markuu soo noqday muxuu abaalmar uga dhigay gobolladoodii inuu ina etoobiya siiyo inaynu kenya ku daro kenya xaquma lahayn etoobiya xaquma lahayn laakiin waxa weeyaan muxtalka waxa qaacidadiisu tahay yucطi maa laa yamlik liman laa yastaxiq waxaanu lahayn buu cid aan lahayn siiyaa nimankii la soo dagaal galay ee maantao dhan taageerayay dhulkoodii waxaa lagu kala daray antakiya amiirkeedii bohmand iyo amiirkii kale ee xukumayay armeniya ayaa laba qaybood la kala siiyey laakiin isagoo wax bixinaya ayuu haddana tusinaya alqutb alwaxiid inuu yahay maamulaha koowaad aan dee dunida laga daba hadli karaynin sidaa daraaddeed qaraar afraad oo cajab badan buu soo saaray qaraarka kani labadii amiire uu wax siiyey buu cagsigooda yahay kii antakiya iyo kii armeniya ayuu qaraar cusub u sheegay qaraarka kani wuxuu sheegayaa inay iyana yaqiinsadaan taabicinayiin niman daba socda dowladda weyn inay yihiine inaanay ismoodin xaliif xooggan oo dee wax mudan qaraarkani wuxuu sheegayaa markaa waxaan beddelay buu yidhi
kiniisaddii bariga ee idinka xaggiinna ka talin jiray wadaadkii haysayna waan beddelay wadaad cusub baan magacaabayaa buu leeyahay hoolaaka iyo kiniisad maxaa isaga dana laakiin amar buu soo saarayaa inuu beddelo kiniisadda antakiya ninkii haystay inuu beddelo isagu kristan maaha kiniisadda antakiya waxba laakiin yaa lagu beddelayaa bal cajabtan kala dhegayso qaraarkani wuxuu sheegayaa madhabka bohmand iyo haytham madhabka ay haystaan sheekh aan hayn baan kiniisadda u dhiibayaa buu yidhi iyagu waxa weeyaan kiniisaddan ay haystaan waa kiniisa sharqiya waa orthodox iyagu kuwa kani waa yacni batririk iyagu waa catholic romanan baa looga taliyaa antakiya romania looga taliyaa waayo kiniisadda ninka jooga Genoa baa laga soo diray marka horeba waa talyaaniga ayaa laga diray waa nin katholika dee protestant dunida markaa ma jirine waa catholic baa jooga iyo kiniisa sharqiya orthodox laakiin batririk yunaniya oo kiniisa sharqiya ka tirsan buu intuu soo qaaday ayuu kiniisaddii katholiga ahayd yidhi adigaa madax ka ah waa qoladan kristankaana wuxuu rabaa inuu u sheego maca diintiinna inuu isagu xukumo maca diinta kiristanku inay hoolaako hoos timaado oo madaahibtan iyo kiniisadahan iyo waxa la sheegay inay waxba ka jirine nin walba halku ku qoro uun inuu arrinku ku socdo waa dulaysi uu dulaysanaya markaa boqorkii antakiya iyo armeniya ka talinayay intaa markii uu kala xukumay ee kiniisaddiina uu dhiibay wadaad greeg ah oo ka tirsan kiniisadda orthodoxka uu madax uga dhigay oo uu tusiyey nimankan xajmigooda dhabtii wuxuu yahay ayuu wuxuu bilaabay markaa waayo waa dowlad dee kuuriya ilaa iyo Poland bay ka talisaa dowladda tani kuuriyadii China kedeeda ahayd ilaa iyo Poland bay dowladdan ka talisaa dowlad lala murmi kara maaha waxa bilaabmay markaa mandaqadii ku hadhay ee Dimashq ahayd iyo weerarkeedii inuu bilaabo ciidamadiisii uu kaxeeyey wadcigii Suuriya iyo koonfurta Turkiga markii ay degtay ayuu socod bilaabay Hamaa ayuu soo maray madiinatu Hamaa kadibna madiinatu Xamsna waa meeshii uu haystay khaayinkii al-Ashraf al-Ayyubi ee isaga naasirka u ahaa ilaa iyo sidii uu la kulmi lahaa Dimashq uu gaadhi lahaa Hamaa xagteeda markuu soo socdo aanu weli soo gaadhin ayay reer Hamaa tashadeen waxaa la isku raacay agagaarkaba intaanu iman wafdi in la diro oo halkuu joogo loogu geeyo furaha reer Hamaa waxay dhaheen muranka iyo rasuul laynoo soo diray iyo arrimahaas baan ka hortagno magaaladii waa tashatay wafdi min al-acyaan baa la diray furihii baa loo dhiibay hoolaaka iyo ciidankiisii aan weli meeshaba soo gaadhin una soo dhoweyn ayaa la yidhi wafdigan baa ku doonaya waxaanay sidaan furihii magaalada Hamaa bes furaha keena buu yidhi si uu qolyaha kale ayna furaha u keenaan ayuu wuxuu yidhi idinka ammaan xaqiiqiyaan idin siiyey magaalada Hamaa la yidhaahdo lama taaban karo oo see la odhanaya wuu iska dhaafa markuu Hamaa dhaafay ayuu Xams tegey Xamsna dee Ashraf al-Ayyubi baa jooga walba isagu xisbigan ka tirsan waa ka sii tallaabay wuxuu u sii socdaa Dimashq markii uu ku soo socdo balan dhanka kale eegno ninkii berigii hore yidhi inankiisa u diray ee lahaa kaalay Masar ila qabo ee markii la yidhi adigaaba iman waaye isaga la maagayna Masar u cararay ee yidhi ninkii Masriga ahaa kaalay oo ila difaaca ee jihaadka iclaansaday ee Hamaa ilaalin kari waaye halkan ag degay Dimashq ag degan bal Naasir Yuusuf iyo ciidankiisii aan dib ugu noqonno Naasir Yuusuf waxa soo gaadhay warka odhanaya ninka isku reerka ahayn inta la dilay in madaxa laga jaro madaxiisii la sito lagu la soo socdo isaga Maxamed al-Kaamil madaxiisii dee waa la siday ilaa Dimashq baa lagu aasi doonaa
magaaladii maya farqina in la qabtay maxay samaynayaan markaa waxaa bilaabmay shir in la isugu yeedho madaxdii dowladda oo dhan baa isu timi boqorkan baqayaana waa la jooga cabsidu ma aha tataarka dhankiisa iyo xooggooda ee cabsidu waxa weeyaan adacfi alasaasi dadkani niyad ahaan bay u jaban yihiin iimaankaa daciifay waxaa la yidhaha la shiro madaxdii uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii waddanku alamiir zaynaddiin alxaafidi ayaa yimi zaynaddiin alxaafidigana waa ninkii uu ka digayay moxamed alkaamil ow lahaa warkaasi khubus buu kaa dhigi doonaaye taladiisa ha yeeleen isaga iyo badraddiin lulu waa nimankuu lahaa shirkaa la soo wada fadhiistay shirka waxaa kaloo ku jira bebres ruknaddiin bebres albunqandari bebres wuxuu ka mid yahay almamaalik albaxriya nimankaa iyo qisadooda iyaga dib baan ka sheegi doonaa masar dowlad caskara baa hadda ka jirta dowla layuubiya waa la inqilaabay dowlad military baa ka dhisan oo niman mamaalika la yidhahdo military ahaan jiray baa qabsaday waa mamaaligtu askarta way isqabteen jananadoodii ugu weynaa nin ka mid ah oo ruknaddiin bebros la yidhaahdo ayaa ninkii meesha haystay ay isqabteen waxoogaa yaroo ciidanuu la soo baxsaday wuxuu joogaa markaa dimashq ninka kan oo ka tirsan markaa ciidamadii masaarida ayaa isagu jooga magaalada dimashq ah shirkii markii la galay ee naasir yuusuf uu hadlay iyo warkiisii waa niman madaxoo wada kurbanaya dee adugu waa madaxda maanta caalamulislaami ka talisa oo maraykanka maxaynu ka yeelnaa ka tashanaysaa yacni maraykan oo intaa yar xukuma ninkan holaaka u xukumaa markaa au ka talinayaa kuuriya ilaa iyo boland baynu idhi inta ka dhex leh ayuu ka taliyaa maxaa la yeelayaa baa la isweydiinayaa waa la hadlay warkii baa batay waxaa hadlay oo muuqanaysa inaanu naasir yuusuf xagga dagaalka u janjeedhin waxaa kaloo muuqanaysa xisbi tataari de inuu meesha ku dhex jiro zaynaddiin alxaafidi ayaa hadlay wuxuu ka hadlay nimanka tataarkaa iyo dee xooggooda iyo dowlad weyn sida u yihiin iyo say khatarta u yihiin wuxuu ka hadlay muslimiinta iyo tabardarridooda iyo dicfigooda iyo say mashkiladda u haysato wuxuu u tilmaamay markaa boqorku wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay waa nimankii jihaadka iclaamiyey markii hore wakhtiga kani wakhti aynu dagaalami karno inaanay ahayn halkaa markuu warkuu maraya baa la yidhi buu ruknaddiin bebres xanaaqay dabeetana waxaa la yidhaahdaa nin aad diin ugu qiiraysanna wuu ahaa wuu cadhooday oo caytamay oo kan zaynaddiin alxaafidiga kana caayay oo taarikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan cayda iyo cadhada iyo waxaasoo dhan boqorku uula jeedaye kan waa sii marinayay inuu dareensiiyo mowqifka uu taagan yahay si kastaba ha noqotee wuxuu u tilmaamay waxaas wax la aqbali kara inaan ahayn marnaba dad muslimiina baynu nahay waddankii islaamka oo dhan nimankani waa soo qabsaday ciidankii ugu xoogga badnaa adigaa haysta dagaalanno tale kale ma taale laakiin bebres wuxuu ka dhex hadlayaa dad geeriyooday innaka laa tusmicu ilaahay qur-aanka muxuu leey innaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu suma adducaa'a idaa wallow mudburiin dad geeriyooday buu la hadlayaa looma dheg taagin markuu arkay inaan cidi u dheg taagin buu iska baxay baa la yidhaahdaa go-aankii meesha ka soo baxay muxuu noqday alqaraaru huwa alfiraar madaxdii go-aana bay qaadatay ah in la baxsado waa madaxdii dhammayd ee jihaadka iclaamisay ee ciidanka dimashq hortiisa dhigtay ee hoolaaka ku soo socdo qaraarkii ka soo baxay wuxuu noqday maxay in la baxsado alamiir naasir yuusuf waa baxsaday umaradii kale waa baxsatay ciidankii waa kala firdhay magaaladii dimashq oo albaabaduu furayiinoo shacabkeedii iyo waxeedii joogaan oo haddana jihaad la iclaamiyey iyo hoolaakiya ciidankiisiiyo soo socda ayaa loo kala dareeray ruknaddiin bebers markuu arkay qadiyaddu halkay marayso waxoogaagiisii u watay buu iska kaxaystay uu ka baxay wuxuu qabtay falastiin
dowladdiisii horena waa dowladdii ay isqabteen oo ka soo cararay laakiin xal kale ma hayo waraaq buu dirtay wuxuu la hadlay Quds janankii ka madaxda ahaa markaa Masar wuxuu tilmaamay mowqifkii muslimiintu meeshuu marayo wuxuu tilmaamay markaa diyaar inuu yahay inuu ciidanka dib ugu soo laabto askarta muslimiinta ka mid ah inuu noqdo dagaalkaana inuu dib wax ugu hogaamiyo tataarka lala gelayo waa nin dagaalyahana waa ka soo warrami doonaa waa ninkii jabiyey ama dagaalyahanadii ugu waaweynay jabiyey xamlaadkii saliibiyiinta gaar ahaan waa raggii Louis-kii sagaalaad gacanta ku soo dhigay Louis السابع faransiiska madaxweynahooda waa raggii soo qabtay buu ka mid yahay waa nin janan oo macruuf ka ah ciidamada muslimiinta ah marka kanna wuxuu dhex joogaa kooxdaasi qaraarka qaadatay ah in la kala yaaco kadib Falastiin markuu tagayna wuxuu codsigaasi u dirtay inuu dib u la heshiin karo ninkii madaxda ka ahaa Masar ninkii madaxda Masar ka ahaana wuu aqbalay soo dhaweyn fiican buu sameeyay ciidanka halkaagii baad ka bilaabaysaa madaxdaadii baad noqonaysaa waa waqti muslimiintu u baahan tahay dagaalkaaga iyo farsamadaada Pebrus markaasi dib wuxuu ugu noqday Falastiin buu dib uga baxay wuxuu ku noqday isagu markaa Masar si uu soo abaabulo uga qayb galo ciidamada muslimiinta ee Masar degan iyo dagaalada ay la gali doonaan kooxdii kale meeshan tagtay waa kala yaacda markay kala yaaceenna Dimashq oo albaabadu u furan tahay ayaa waxa soo galay ciidamadii Holaako Dimashq aan madaxi joogin oo military joogin oo ciidan joogin oo waxba joogin oo jihaad iclaansatay ayaa waxa soo galay Holaako iyo ciidankiisii maxay ku sameynayaan markaa Dimashq shacab aan dagaal u diyaar garoobin dagaalami garanaynin askartii muxtarafiinta ahaa ay ka yaaceen waa mowqif aad u cajiib ah shacabkii baa isu tegtegay waar maxaynu yeellaa baa la yidhi warkii xamaana wuu soo gaadhay waar haatan inanaan furaa la cararraba yidhaahdeen sidii xamaa intaynu ka hor tagno aan furaha geyno iyana furihii bay soo qaadeen in yar oo ciidamadii ku soo hadhay baa yidhi waar anagu yeeli mayno waa iska dhimanaynaa intaanu furo sii sidii lahayn kollayba nala dilayo waa dagaalamaynaa qalcad yaroo magaalada ku taalla bay galeen shacabka intii kalena waa israaceen furihii bay qaadeen waxaa loo keenay Holaako markii uu Xamaas siinayay nabadgelyada dhabta ah malihiisii waa u xaqiiqoobay maxay in furayaasha kuwa kalena keeni doonaan aanu dagaal iyo dhib la kulmi doonin Holaako oo gacanta ku dhigay furayaashii Dimashq markaasi asaan magaalada soo gaadhin ayaa war cusub soo dhacay warkan cusub wuxuu sheegayaa boqorkii dawladda Tataarku inuu geeriyooday boqorkani waa walaalkiisii ka weynaa ee Manko Khan loo odhan jiray Holaako wuxuu u soo arkayaa nin dhalinyaro ah isagoo 8 jir uu dagaalka soo bilaabay marka kan dhowr iyo 40 jir maraya waa nimay boqorka hore walaalayiin waa ninkaa qabsaday akbar caasima fi lcaalam ciidanka jabiyey watay ee Baghdad gacanta ku soo dhigay haddana alcaasima athaniya lilmuslimiin caasimadii labaad ee muslimku uu yeesho gacanta ku dhigay oo Dimashq ah labadii magaalo ee dunida markaa ugu waaweynaa waa Dimashq iyo maxay iyo Baghdad ee caasimatul umawiyiin iyo caasimatul cabbaasiyiin labadaba gacanta ku soo dhigay wuxuu isu dhigayaa markaa inuu madaxweyne noqon karo wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada wuxuu u dhiibay nin hogaamiyaashiisii sare ka mid ah oo Katabqanawiin la yidhaahdo oo isagu Kiristana laakiin Mongoliana
ayuu madax uga dhigay isna ciidan buu dib u kaxaystay wuxuu ku socdaa markaa qaraaqaram inuu tago caasimaddii mongolia oo qaabkii dhismaha dowladdooda u dhisnaan jiray waxay ahayd inay nimankaa waaweyn ee madaxda isu yimaadaan la isu wada yimaado dabeetana madax cusub la doorto dee waxaanu isu arkayaa inuu waaxid min almurashixiin alkibaar inuu ka mid yahay oo dee jankis khaanna waa wowgii rumadde ninkii meeshaba asaas dib buu u laabtay mu'ahilaadkaasoo dhan isagoo wata mantaqa sharqi lawsadna waa ninkaasi gacanta ku haya dhexda laakiin markuu sii socdo oo aanu meeshii gaadhin ayaa waxaa loo sheegay in dowladdii isu tagtay madaxweyne cusub la doortay qopalay ninkii la odhan jiray ay walaalayiin isaga in loo doortay inuu noqdo maxay boqorka waddankii mongolia ama tataarku ay ka talin jireen inuu boqorka loo doortay isagii markaa muxuu samaynayaa meel dhexna wuu marayaa dib uu isaga noqday caasimad cusub wuxuu ka dhigtay magaaladan tabriz la yidhaahdo tabriz waa tevlis meeshan iminka la yidhahdo waxay ku taallaa iran halkaas buu degay oo uu ka dhigay waa meel bartamo u ah dowladdii ballaadhnayd ee uu ka telinayay inuu meeshiisa madaxtooyada ay u ahaato wuxuu ka taliyaa markaa dowladda tan ama isagoo aqaalim ka soo bilaabma khawarzm ilaa yashaam khawarzm waa magacyadii qadiimka waxaa laga yaabaa inaydan imaka garanayn waa kasikhstan turkmanistan uzbekistan iyo afghanistan bakistan persia azerbaijan ciraaq turkiya shaam intaasuu xukumaa hadda holaako isagu intaa mandaqada ah kasikhstan laga soo bilaabo ilaa iyo suuriya turkiya inta ka dhex leh ayuu isagu xukumaa holaako markaa dib uguma soo noqonin dimashik waayo waxaa iska macruufo warkiina dee kollay soo gaadh ninkii u hanjabayee naasir yuusufna inuu cararay magaaladiina dee furaheedii la keenay dagaal xoogganoo uu soo dhaqaaqaa meesha ma yaallo meeshaasuu iska jooga isagu katabqa ninka la yidhaahdo oo wata ciidamadiisii ayaa soo galay magaalada dimashik isla markaana warqad ka helay holaako sheegaysa naasir yuusuf ninkii la odhan jiray meel kasta ha jiree soo qaado ii keen waa ninkii cararay in la soo qabto dimashik markay soo galeen ee furayaashii loo dhiibay caasimatu dimashik caasimaddii muslimiinta ee dowla lumawiya oo ka mid ah magaalooyinka dunida ugu waaweyn oo ka mid ah meeshay muslimiintii saxaabadu ka talin jireen dhulkay saxaabadu furteen ah ayaa waxay ku dhacday gacantii nimankaasi waa markii koowaad taariikhda laga soo bilaabo 14 hijiriyada markay muslimiintu qabsadeen oo dimashik ay soo galaan 3 nin oo madaxa oo kristana oo dowlado ajnabiya madaxu ah waxaa soo galay markaasi ciidankii nimankaasi oo uu hoggaaminayo katabqa oo nin kristana ah oo uu hoggaaminayo boqorkii armeniya oo uu hoggaaminayo boqorkii antakiya saddexdaa nin bohmand iyo haytham iyo katabqa ayaa magaalada soo galay waa wakhtigaasi ku dhadhow baynu odhan karnaa 600 iyo kontoneeyada sannadood sidii hiraqalis iyo kooxdiisii muslimiinta uga saartay waa markii labaad ay dimashik dib ugu dhacdo gacanta nimanka kan waana runtii wakhti qiyaasi ah in dimashik iyo baqhdaadba 2 sano gudahood ay dumaan waayo waa safar dabayaaqadeedii wakhtiga dimashik la qabsanaya sanadkii 850 waxa ay sameeyeen marka dimashik waa magaalo dad badani degan yahay qalcado waaweyn leh mustawaa maciishiga uu koreeyo markay gacanta ku dhigeen magaalada tan waxaa madax looga dhigay nin la yidhaahdo ibl sayaan
bal aan ibnu kathiir akhriyo waxa uu ka qoray masaladatan. ibnu kathiir wuxuu leeyahay abul sayaan ninka la yidhaahda buu yidhi allaha nacda leh ayaa wuxuu la kulmay kiniisadihii ku yaallay dimashq nimankii madaxda ka ahaa, dabeetana wuu weyneeyey oo kanaa'istoodii buu soo booqday oo wuxuu siiyey xoog, waxaanu ka dhigay daa'ifadii nasaarada ahayd ee markaa ku la noolayd muslimiinta inay ku biiraan safka hoolaaka iyo ciidamadatan. koox ka midana waxaa loo dirayba tabriiz iyo wufuud inay ugu tagaan boqorkii hoolaako iyagoo barakaynaya oo hadiyada sida. waxay ka soo galeen buu yidhi magaalada dimashq albaabka tooma la yidhaahdo, iyadoo saliibka kor loo sido oo dadka madaxyadiisa oo dhan kor looga qaaday oo ay dhawaaqayaan oo leeyihiin dahara diinu lmasiix, dahara addiinu asaxiix. diinu lmasiix baa dimashq laga dhex leeyay. waxaa kor noqday diintii saxa ahayd, diintii masiixiyaddaa kor noqday. waxay soo galeen iyagoo caayaya markaa islaamka iyo ahalkiisa, iyagoo wada weelal waaweyn oo khamri lagu sido oo albaabada masaajidda buu leeyahay khamri ku rushaynayaan, oo meelaha dadka muslimiinta ay joogaan inta la yimaada khamri wejiga lagaga saydhsaydaayo dharka si loo nijaaseeyo salaadda ayaanay u asixin. waxay fareen buu leeyahy kullu man yajtaasuuna bihi fi lasiqati waalaswaaq an yaquuma lisaliibihim. waddooyinka iyo dhulka la soo maro o dhan mar haddii lala soo maro calaamadda kiristanka in dadka muslimiinta oo dhamme ay isu taagaan, kadibna meel yaroo deka ah oo dukaan nin muslimi uu leeyahay inta dukaanka la istaagay dekadiisii, dukaan nin haysto dekadiisa inta la istaagay ayaa khudbad laga jeediyey lagu ammaanayo koroska aada loo ammaanayo, diinta islaamkana aada loo ceebaynayo. ibnu kathiir intuu ishayn waayey buu wuxuu leeyahy fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. isagoo weli warka sii wadaba wuxuu leeyahy waxay soo galeen masaajidkii weynaaye dimashq ku yaallay masjidulumawiyiin bay gudihiisa soo galeen iyagoo khamri sida oo khamri masaajidka la soo galay. dabeetana qaadiyadii muslimiinta iyo nimankii fuqahada ee masaajidka joogay iyo dadkii meesha xaadirsanaay oo cadhaysan ayaa qalcaddii magaalada ku cararay, oo ninkii madaxda ebel sayaan la odhan jiray oo zaciim tataara weeyaan ayay qabteen iyagoo raba inay ka ashtakoodaan daa'ifadan kiristankii waxay ku samaynayso. isna wadaadadii u yimiyo intii wuu dulleeyey oo dabeetana wuu soo eriyey. warkaa nasaaradaa saxee baxa buu ku yidhi. ibnu kathiir haddana wuxuu leeyay fa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. dimashq waxay noqotay in ciidanka tataarkuna ka taliyaan, daa'ifada kiristankuna ku amarku taaglayso ee meesha joogta, maadaama ninka ciidanka watoo dhammi uu isaguba yahay katabqa nin masiixiya uu yahay. waxaanay daa'ifadani matelayaan iyagu waa dad muslimiinta la deganaa, meeshana degi jiray, garanayana khabaayaadka iyo meelaha muslimiinta wax ugu qarsoon yihiin oo dhan. katabqa markuu dimashq iswada raaciyey wixii la leynayey, wixii la boobayey, wixii la dhacayeyba, ayuu wuxuu bilaabay inuu falastiin u dhaqaajiyo. dabeetana falastiin magaalada nablus la yidhaahduu qabsaday, horaa loo sii socday, ghaza ayaa la gaadhay. ghaza markaa masar sinaa 35 kilomitir baa loo jiraa. caalamulislaami markaa wax dowlada oo dagaalami kara masar baa ka hadhay. masar xagga shishe waxaa ka sii xiga waa wakhtigii ay dowla almuwaxidiin baaba'day iyana oo laga soo saaray andalus oo dhexdooda ay ishayaan oo gobollada yar ee north africa ku yaalla dowlat almarin iyo dowlado yaryar ay u kala googo-een, iyana xaggaa xoog ma jiro. jaaniska qudha muslimiinta u hadhay markaa waxa weeyaan, ama aan odhan karo xawla alcaalamba one jaanis baa hadhay, say taarikhyaano badani qiraan inay dunidoo dhan dowladdaasi tataarkii ka taliso. hal dhagax baa hor yaalla oo ah masar. masar waa meel kahaafa sukaaniya ballaadhani ka jirto, waa meel saxwa islaamiya ballaadhani ka jirto, culamo badanoo muslimiini marka kan degan tahay.
waa meel dowlad islaamiya oo cusub ay ka jirto dowlad aan boqortooyooyinka naaxnaaxay ahayn dowlad militariya inqilaab wax ku qabsatay oo dowladdii koowaad ee casaakira ay meesha ka talinayso dowlad casaakira ka jirta dowladdii nimankii la odhan jiray na waxay marayaan falastiin ghaza bay soo gaadheen katabqa wuxuu ku dhaqmay dhaqankii uu ku dhaqmi jiray ninkii odayga ahaa ee la odhan jiray holako oo ah imaarado yararoo badan oo kiristana meeshan ku yaallay midna waxuma geysanin wuu wada dhinac maray lebnaan iyo suuriya qaybo ka mida iyo tuulooyin yaryar falastiin qaybo ka mida oo ay lagu qabsaday dagaaladii crusadeska oo imaarado reer yuruba ka jira kuwii oo dhan wuu iska dhinac maray waxna dhiba uma geysanin laakiin daris buu siiyey ah mahma ay dowlado yarara sheeganayaan inay taabici dowladda weyn u yihiin saa daraaddeed amar isaga ka yimaado mooyaane inaan wax kale lagu dhaqmi karin dariskan laakiin qaar baan fahmin boqorkii magaalada sayda la yidhaahda ka talinayay julian ninkii la odhan jiray oo sayda ka talinayay ayaa wuxuu arkay in tataarkii dee caalamul islaam oo dhan qabsadeen dabeetana wuxuu is yidhi dowladda aadna yaro ballaadhso wataa dee muslimiinta ay jabeene albaqaac meeshan la yidhaahdo ee ku taalla lebnaan intaasoo muslimiina haysato ayuu is yidhi ka gaadhsiiyo aadna intaa ku darso katabqa baa loo sheegay boqor yaroo kristan inuu duulimaad sii wado meel halkaasiya farriin buu u diray uu leeyahay ma dhici karta inaad duusho laakiin wuu isdhega adkeeyo duulimaadkiibuu qaado intii yarayd buu ku soo darsaday katabqa isagana amar buu bixiyey in cagta la mariyo julian iyo saydabana cagtaa la mariyey waxaa dhacday isagana yoxana thani mid la yidhaahdo oo bayruut markaa isna xukumo kristana ayaa isna is yidhi wallaahi wataa muslimiinta laga takhallusaye mantiqatuljabal adna ku darso oo bahasha yaro ballaadhe isna war buu u diray uu leeyahay arrinta joojiya wuu yaro dhaga adaygay isagana cagtaa la mariyo waa lagu daray dowladdan warkeedu soo noqonay baa meesha taalla ama kristan haw ama muslim hawe aanada amar yeelan karin inaad taabic noqoto mooyaane inaad daba socoto mooyaane alqutb alwaaxid waxaa soo baxday dunidoo dhan in hal dowladi ka taliso oo waa dowladdaa qaadatay go-aanka ah xataa daa'ifada kiristanka ee kaatoliga wadaadkeeda inay ka dhigto inuu noqdo maxay wadaad orthodox ah in orthodox ka taliyo waxay u arkayaan markaa yurub kiristankii joogay ee barigoo dhan wuu qabsaday waa masale aada u fudud markaa caalamulislaamiya oo la moodayo inuu aada u xoog badan yahay siiba mantiqadii dowla layuubiya ka talinaysay iyo mantiqadii dowla alcabaasiya ka talinaysay labadabana 2 sano dagaal soconayay ku qaadatay inuu kaga takhalluso hadda waxaa hadhay oo qura waa masar xoog tiro badan oo islaamiya yaalla waa mantiqo dadka degan ay aada u tiro badan yihiin waa mowqac istraatiijiya waa cidda qura ee aynu leenahay way hortaagnaan kartaa dowladda tan waa meel kahaafo sukaaniya leh waa meel saxwo islaamiya ka jirto laakiin masar lafteeda markan iyana azimaad kala haysta asma siyaasiya baa haysata oo niman mamaalik la yidhaahdaa xukuma mamaaligtu waa niman markii hore addoonnimo waddanka lagu keenay military laga dhigtay dabeetana aan casabo qabiileed iyo reer ay ku tiirsan yihiin iyo mantiqadda ka tirsanayn askara baa haysata marka asma siyaasiya sharcinimadooda ah baa taagan asmo dhaqaaleed baa taagan wakhtiga kan oo dagaaladii crusadesku dhankan bay kaga socdeen hadday ka soo baxeen dagaaladii crusadeska kii tataarkuna dacalku u soo saaran yahay waxaa haysata asmo dhaqaale asma caskariya haysata oo markay meesha qabsadeen askartii qabsatay dhexdeeda iskhilaaftay marka ninkii meesha loo dhiibay hore waa la dilay kii ku xigay waa la dilay
kii ugu xooga badnaa waa kan baxsaday oo u cararay dimashq mucziya koox la yidhaahdo mamalik albaxriya baa xoog badnaa mamalik almacziya niman la yidhaahdo ayaa markaa meesha haysta oo qitis nin la yidhahdo uu xukumo qitis ninkan meesha xukuma waxaa abti u ah ninkii sindi la eryayay aynu soo sheegnay dhashiisii iyo carruurtii la qabsaday buu ka mid ahaa dabeetana addoonnimada tataarku ay u soo iibiyeen qoyskii boqortooyada ee ka talin jiray khawaarzam ayuu ka tirsanaa addoonnimaa loo soo iibsaday dee ilaahay unbaa dunidan iska lehe ninkii boqortooyadoodii la baabiiyey ee addoonka noqday hadda waa madaxda muslimiinta ugu sarraysa haddana isagoo addoonnimo ka soo bilaabayba wuxuu haystaa masar buu markaa kan ka talinaya quds baa la yidhaahdaa qadiyadda tani markaa waxay u baahan tahay meel dambe iyo war dambe oo ballaadhan waayo waa macrakada dunida ugu caansan baan odhan karnaa ee jebisay aqwa dawla fi lcaalam ayaa soo socota macrakatu cayni jaaluut waa dagaalkii ugu weynaa yurub oo dhammi way iska kicin kari weyday tataarkii muslimiinta intii kale oo dhan waa la soo jidho waa la iska kicin kari waayey waa aakhar qalca fi lcaalam bay yidhaahdaan dagaalkaa ugu dambeeya hadday dunidu ku jabto waxa weeyaan dunida in tataar ka talin karo laakiin biidni illaahi tacaala wixii ka dambeeya waxaynu dib u bilaabi doonnaa dunidoo tataarka dib looga safaynayo iyo dowladda masar oo markaa ku guulaysatay inay dib u riixdo ninkii naasir yuusuf lo odhan jiree baxsadayna ee dimashq ka cararayna firdhadkii falastiin buu galay uu ka sii firdhaday urdun buu galay saxaaraha urdun buu ku dhuundhuuntay boqorkii hoolaaka amar ku soo bixiyay in la soo qabto wuxuu dhuumashada ku jiraba meel saxaaraha urdun ka mida baa laga soo qabtay isaga iyo koox uu dhalay iyo wax la socday hoolaaka iyo dhankiisii baa loo diray laba shayba waa la sheegaa inuu ku dhintay qola waxay yidhahdaan hoolaakaa dilay qaarna waxay yidhahdaan maahee dib maadaama uu iska ahaa qof uu wadwadan karo dib buu ugu soo amaamudo wuxuu yidhi xalab iyo dimashq iyo meeshii baan kugu wareejinayaa isagoo boqortooyada dib loogu soo wado ayay dhacday waqcaddii caynu jaaluut ee tataarka lagu soo jebiyey firdhadkii tataarka oo caymada meel dhexa ka helay baa la yidhi kuwii baa kusii cadha burburay isagoona madaxa ka sii jaray wallahu aclam billahi towfiiq